wafdigani oo ka koobnaa 16 xubnood oo isugu jiray xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee UN Boss xubno ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland iyo dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa hogaaminayay Mr. Brown Lakista oo ah wakiil ka socday xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha siyaasadda xubnaha wafdigani qiimeynta ama xaqiiq raadinta oo maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa kulan saacado qaatay waxa ay la qaateen madaxweynaha Galmudug Korneyl Maxamed Axmed Caalin madaxweyne ku-xigeenka xubno ka tirsan golihii xukuumadda la kala diray kulanka oo saxaafaddu ay banaanka ka joogtay ayaa markii uu soo gabagabay waxa wafdigani ay kormeer ku tageen goobo lagu talagalay in la dejiyo ergada ka qayb qaadanaysa shirka dib u heshiisiinta oo la filayo in bisha July ee foodan ugu soo hayso uu ka qabsoomo gudaha dalka Soomaaliya Mr. Brown Lakista oo saxaafadda la hadlayay kormeerka kadib ayaa uga mahadceliyay maamulka Galmudug sida diiran iyo waliba amniga ay Gaalkacyo ugu soo dhaweeyeen isagoona sheegay in Galmudug ay marti gelin karto shirka wada tashiga aayaha Soomaaliya afayeenka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan oo asna saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay kulanka ay la qaateen xubnaha wafdigani oo daba socdo kulamo hore oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxa maanta booqasho ku yimid deegaanada Galmudug wafdi socod xafiiska siyaasadda ee Yanga iyo mas'uuliyiin dowladda federaalka oo ka mid yahay xildhibaan Cabdullaahi Shaqsiil iyo xubno kale iyo mas'uuliyiin kale oo fara badan oo ururada iyo Puntland ka socotay iyo mas'uuliyiin Galmudug oo heer wasiir iyo wakiilka Galmudug fadhiya Nairobi. Kulankaas wuxuu dhacay deegaanada Galmudug waxaana looga hadlay in la meeyo halka shirkadii booliisiineed lagu qabanayo oo la kormeerayo si loo ogaado xaqiiqda dhabta ah waxay maanta kormeerayeen deegaanada Galmudug iyo deegaanada Puntland iyadoo shirkii ugu dambeeyay 26 bishii May ka dhacay magaalada Nairobi lagu go'aamiyay in la qabto shir looga hadlayo aayaha Soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galayaan dawladda Soomaaliya dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Galmudug iyo waliba Puntland oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya xubnaha wafdigani isku dhafka ah ayaa waxaa kala hogaaminaya dhanka dawladda ku meel gaarka ah xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil iyadoo dhinaca Puntland uu hogaaminayo wasiiru dawlaha xiriirka caalamka Dr. Cabdiqaadir Cabdi Xaashi dhinaca Galmudugna waxaa hogaaminayay xubnihii ka socday wakiilka siyaasadda ee bariga Afrika ee Galmudug Xasan Maxamuud Xasan Jabuuti xubnahani wafdiga xaqiiq raadinta ayaa markii ay soo gabagabowday hawshoodii qiimeynta iyo waliba kulmadii ay la qaateen mas'uuliyiinta Galmudug kadib waxa ay ka ambabaxeen magaalada Gaalkacyo iyagoona u boqola dhanka magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland si ay kulamo kuwan la mid ah la soo qaataan maamulka Puntland Roble Maxamed Dirir Home Cable TV Gaalkacyo.